السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan idin wadaagayaa muuqaalkii saddexaad oo ciwaankiisu yahay hadal gaaban. walaalayaal kulligiin waxaad wada ogtihiin marka aan salaadaha tukanayno in aan ku sallina nabigeena suuban sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo ahlkiisa. salaadaasna ay tahay mid waajib ah. laakiin marka salaada banaankeeda aan joogno sidee baan ugu sallinaa nabigeena suuban sallallahu alayhi wa alihi wasallam. dadka intooda badan waxay yiraahdaan sallallahu alayhi wasallam oo macnaheedu tahay duco iyo raxmad korkiisa ahaada nabiga, laakiin intaasay ku daayaan iyaga oon raacinin aalka rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. laakiin waxaad ogaataan salaada nabiga lagu sallinayo iyada oo aan la raacinin ahlul baytka in ay tahay salaad lagu magacaabo batraa ama midii dabada go'oneed. salaad daba go'on baa la yiraahdaa. sida saxda ah waxa weeye in markaad nabiga ku sallinayso sallallahu alayhi wa alihi wasallam aad tiraahdid allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin. gefka waxyaabaha gefka iyo khaladka faafay ee dadka ku dhex faafay waxaa ka mid ah inaad tiraahdid allahumma salli ala muhammad oo inta aad ku daysid oo allahumma salli ala muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo waxyaabo lamid oo aad ka tagtid ahlul baytkiisa. nabiga way weydiiyeen oo waxay yiraahdeen sidee baan kuugu sallinaa rasuulka ilaahayo. markaasaa wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. waxaad tiraahdan اللهم صل إلهيو duco iyo raxmad yeel nabi maxamed korkiisa iyo qoyskiisa aalkiisa ilaahu yeel. salaada uu ina baray nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayaa ah mid mashruuca ee la baneeyay ee inaan ugu sallinana ay dawga tahay. laakiin tan la dhahayo sallallahu alayhi wasallam oo laga tagayo qoyska rasuulka daw ma aha inaan rasuulkeena suuban ugu sallina sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi. wuxuu sheegay imaam sakhawi kitaabka ku saabsan salaada ee uu nabiga ka qoray iyo imaam ibn hajar al-haytami as-sawa'iq al-muhriqa iyo jawhar al-aqdaynka isagana saaxiibkiisu waxa ay ku soo rareen yani samhudi waxa ay ku soo rareen riwaayad uu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam la tusallu alayya salata al-badra, ha igu sallinina salaadii dabada go'oneyd. waa ay weydiiyeen waxay ku dhaheen rasuulka ilaahayow maxay tahay salaada loo yaqaano salaatul badra ama salaada dabada go'on. rasuulkuna wuxuu ugu jawaabay an taqulu allahumma salli ala muhammad wa tamsaku, wa inaad nabi aniga igu sallinaa oo deedna iska aamustaan ee ina dhihin اللهم صل على محمد وآل محمد. إيدها أيودي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. صدرت سيدة الصوابك أو حوية إن أنكسر لنا النبي النصوبا صلى الله عليه وآله وسلم آل كان آن راعنا أو آن دهنه اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدة مركز صلاة أن كجر ربا أن أوصل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيال كي سلم ضبا أن أوصل لنا. sidaasoo kale ayaa la inaga rabaa inaan u dhammaystiro marka aan banaanka joogno salaada inaan u dhammaystiro. ha noqonina kuwa gooya qoyskii rasuulka iyo aalkii rasuulka. aalka rasuulka ama qoyska rasuulka waa dad fadli badan, waa dadkii ilaahay uu yiri qul laa as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fi alqurba. nabi maxamedow dadka waxaad ku dhahdaa risaalada iyo xaq aan idin keenay wax ajira iyo wax thawaaba iyo wax dhaqaala idinkuguma weydiisanayo ilaa inaad qoyskayga jeclaataan ayuun baan idinku weydiisanaya. waa kuwii rasuulku markii sii dhimanayay sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu inoo dardaarmay inaan qabsano oo uu yiri waxaan idinkaga tagay laba shay oo haddii aad qabsataan aydaan dhumaynin, kitaabka ilaahay iyo qoyskayga. taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abadan kitaab allahi wa citrati ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam. waxaan idinkaga tagay laba shay oo haddii aad qabsataan aydaan dhumaynin, qur'aanka kariimka ah iyo citradayda ayuu yiri. tan iyo muuqaalka dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.